السلام عليكم وانا هو دكتور يوسف كسو دواده برنامجka caafimaadkan ku soo gudbiyo halkan fiidiyowga hore ama fiidiyo hore aan sameeyay waxaan kaga hadlay rug xanuunka stage-da ama marxaladaha kala duwan ee soo maro tusaale ahaan arthritis-ka xanuunka ku dhaca lafaha macarjooda iyo marka aad u baahan tahay kala bedelka adaba haddii aad arthritis ama arthrosis ku dhaco ku saameeyo jimicsi noocayaad u baahan tahay in aad sameyso waxaan fiidiyowga hore soo xasuusta la socotay waa sawiradii oo markuu rugu ahaa normal aan wax dhiba qabayn ama waxba soo gaadhin kana waa markii uu baahday kala bedelka mar haddii marxaladaha kala duwan soo maro waxaan ku soo gudbinayaa 3 ama 4 jimicsi oo aad sameyn karto xilliga haddii aad qabto ama aad rug xanuun leedahay tusaale ahaan oo kale haddaad ka aragto kasoo fadhiisanaysaa lugta ayaad kor u qaadaysaa jimicsi ahaan aad ku celcelinaysaa ama waad fadhiisanaysaa kursiga adoo taagan ama adoo jiifa ayaad jimicsiga ku sameynaysaa lugta dhabarka adoo jiifa mar waxaad u sameynaysaa xagga caloosha mararka qaarkood oo kale kursigii ayaad ku istaagaysaa dib baad u soo qabanaysaa fiidiyowga ka aragto ama diagramka aad ka aragto jimicsiyaas oo kuwa muhiimsan marna si gooni ah u sameynaya haddii Ilaahay qadaro waa kuwa loo sameeyo jilib xanuunka ama haddii aad leedahay uu ku saameeyo arthritis-ka ka hor si aad uga hortagto ama dib u dhigto kala bedelka loo sameeyo ruga wanayo kulida daban